السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo markaa sameynaysid imtixaanka baabuurka waxyaabaha loo baahan yahay inaa oo ka fikirtid. horta waa ogahay waxaan waa lasla soo maray. markaa imtixaan aad leedahay laasim waa cabsanaysaa, aad u cabsanaysaa, wadna kurkuraad dareemaysaa, laakiin looma baahan inaad samaysid. maxaa la dhahay, dadka waxay ku sameeyaan, dadka sameynaya imtixaanka leh waxay sameeyaan stress. waxay ilaawayaan leega muhiim waaye, id kaarka muhiim waaye, aad iyo aad u muhiim yahay. id kaarka haddaa ilaawdid imtixaankaas iyo lacagtaas waa khasaartay, way kaa ahaatay. marka waxaan rabaa si aad iskaga ilaalisid stresska iyo welwelka waxaaga habeenkii inaad diyaarsatid, meel dhigatid. waxaa jirta oo duco loo akhristo wax walbo adiga aad leedahay inaad rabtid inaad samaysid duco oo ku akhrisinaysid, ilaahina wuu ku fududaynaya. ducadaas waxay tahay allahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahla wa anta tajcalu hasna ilaa shi'ta sahla. ducadaas aad iyo aaday muhiim u tahay. fadlan ha ilaaweyn id kaarkaaga marka oo imtixaanka baabuurka aad leedahay. okay, markaa meesha tagtid oo imtixaanka ku leedahay tagtid, waxaa loo baahan yahay inaadan stress ku tagin. meesha tag 10 daqiiqo ilaa iyo 15 daqiiqo ee ka dhiman tahay si aad isku diyaarisid. waa inaad meesha tagtaa, isdejisaa, wixii kafeegaaga iyo saaxiibadaada aad la sheekaysanaysid iyo aad ku samaysid meesha. waa inaad fadhiisataa, aad ku sugtaa adigoo degan oo cabsi iyo waxna dareemaynin inuu qofka macallinka ku imaanayo oo saas kugu imaado. laakiin haddaad tagtid xilligii laguu baahnayo mase 2 daqiiqo 1 daqiiqo ka dhiman, waa soo galee heeyaa lagu leeyahay inaa hore ka gashid waay. jaha adiga stressa kugu furo maanta dhana tareen iyo bas iyo waxaa soo saarneed imtixaankaa ka fikiraysay, waa lagu kaxaynaa bis khalaas. hal khalad haddaa samaysid xirka hataa waa lagu cunaa. marka laakiin fadlan ha tagin adigoon diyaar u ahayn. dad waxaa jira dhahay waa inaan sameeyaa, waa ku nasiibsanaa. waxaa laga yaabaa waa inaad soo diyaarisaa. ma fahantay? waa inaad soo diyaarisaa waxyaabaha lagaaga baahan yahay oo muhiimka ah maalinta samaynaysa imtixaanka. waa inaad isdejisaa, waa inaad xil is saartaa. qofku wuu ku weydiinayaa imtixaanka kaa qaadi doono, wuu ku weydiinayaa waxa la dhaho secretary controlka biilka baabuurka, wuu ku weydiinayaa lugta nalalka, hadduu alla ku roon yahay soonka, kursiga adiga aad fadhisid lugahaaga ma kala dheer yihiin. waxaasoo dhan waa inaad iska fiirisaa. ma fahantay? markaad soo samaysid banaanka baabuurka, nalalka iyo lugaha baabuurka, waxaas dhan markaad soo fiirisid, suunkaaga waa inaad saan u xerataa. suunkaaga saan u xero, saan dhe jiid, mujeedaa? waa inuu ku dhigaa. okay, wuu fiican yahay. qofka imtixaanka kaa qaadayana wuxuu arkaa adig inaad diyaar tahay, qof diyaarsan inaad tahay oo ku arkaa. okay, waa inaad miraayadahan waa inaad suubsataa. miraayadan gudaha ku taalo ma arkaysin, laakiin midda gudaha ku taalo gadaal baabuurta layskaga fiiriyo aad ay muhiim u tahay inaad samaysatid, si fiican u samaysid. iyo labada dhinacyaasha ah waa inaa dad waxaa jira hoos iska soo gelinaa. waa inaad bixisaa baabuurka adiga bar, waa inaad aragtaa, iyo wixii agagaarkiisa maraa waa inaad aragtaa. waxaa dhan markaad samaysid, markaas kadib imtixaanka gelaysin waa wadada qaadaysin. marka insha allahu tacaala
intaasaa raba inaa idinla wadaago oo maanta maskaxdeyda kusoo dhacay. Dadka imtixaanka lehna waxaan u rajaynayaa inay kusoo guuleystaan, laakiin isdeji markaa imtixaanka samaynaysid waa inaad isdejisaa. waa inaana tagtaa meesha 10 ilaa iyo 15 daqiiqo ay ka dhiman tahay, waa inaa meesha joogtaa. wixii kafeeya iska cabaysa iska cab, diyaar ah adoo degan oo habi ah imtixaankaa gelaysaa, ma fahantay? laakiin ma idin rajaynayo insha allahu tacaala qof walboo leh inuu kusoo guuleysto. haddii ay dhacdo inaad ku dhacdid, wax welwel ha isgelinin. waxaan waa xagga ilaahay ay ka qoran tahay. maalintaas oo qaadaysid way qoran tahay maalintaas, ma fahantay? alxamdulilah alshukr aa leedahay. bes isla markii qofka waa dhacday keliya lama dhaa, mogtahay? wuxuu ku dhaco waa loo saxiixaa, waa loo calaamadeynaa, waa loo soo diraa, ma fahantay? adigoon ilaaweyn wixii kale oo adiga taqaanay, laakiin iskuul lagu soo calaamadeey waa inaa cashar aad ku gadataa, mase qof saaxiibka mase familiga. inta adiga waa inaa xoogga saartaa. muhiimadda aniga ma aqaano, waddanka Sweden aa joogaa. kuwa muhiimka ah loo baahan yahay inaa iska ilaalisid xaafadaha badanaa imtixaanka xaafadaha lagu qaadaa. xaafadaha muhiimka waa inaa siisaa dadka soconayo iyo baaskiilada iyo waxyaabaha lamid waa inaa 30 ku socotaa, mase 25 30 waa inaa ku socotaa, ka badan may. teeda kalena mar walbo adiga oo baawurka qaboojinaysid, ha qaboojinin adoona fiirin miraayada oo gudaha ku taalo oo gadaal laga fiiriyo. markaa rabti inaad qaboojiso kow waa inaa fiirisaa, kadib aa qaboojinaysaa baawurka. waa leexanaysaa soo ma ahan. til example waxaa u leexanaysaa bidixaa u leexanaysaa soo ma ahan, bidixdaana u leexanaysaa soo ma ahan. kow waa inaa fiirisaa midda miraayada gudaha ah. teeda kale midda oo dhinaca adiga u leexanaysid ku taalo waa inaa fiirisaa. mid la dhahay gadaal, ani ma aqaana, dooda fingalaa la dhaha, waa inaa saan dhehdaa. wixii agagaarkaaga ah waa inaa saan iska fiirisaa. teeda kalena marka oo adiga u leexanaysid bidixdaada, geeskaasna ma istaagaysid, laakiin waa inaa dhexda waa inaa istaagtaa. ilaan baawaraa soo galayo, dhinacana baawaraa ka baxayo. marka meel muhiima waa inaa istaagtaa. dhinacyada wax dhan stress isgelin, tartiib fiiri, dhinacaan fiiri, wax maa soo socdo. mararka qaar calaamadooyin ay leedahay, ma fahantay? calaamad gaduud ah ay leedahay oo laga leeyahay labada dhinac. haddii calaamad lahaynin, meeshaas waxaa ka jiro waxa la dhaho hoogereegeen, micnaha midigtaada wixii ka imaado way kaa leeyihiin haddii wax calaamad ay yaalin. laakiin haddii calaamad taalo, calaamadaaba kuu sheegayso. waa inaa istaagtaa, dhinacyada iska fiirisaa. everywhere soo ma ahan. baashaasa bahalkaaga baxsanaysaa, blinkishkaaga baxsanaysaa, dhac waa leexanaysaa. dhinacan laakiin gacantaada midigta markaa u leexanaysid, sidii hore u samaynaysaa. midda gudaha fiirinaysaa, midda oo dhinac kale oo banaanka ku dhegana fiirinaysaa. waxaan u dhaweynaysaa geeskaas oo isku dhaweynaysaa, ma fahantay? geeskaas waa inaad isku dhaweysaa. marka insha allahu tacaala waxaa idin rajaynayaa qof walbo imtixaan leh imtixaankiisa inuu kusoo guuleysto insha allahu tacaala. wixii aniga oo aqoon aan leeyahay ama soo arkay waa idinla soo wadaagi doonaa. walaalayaal waxaa idinka barinayaa youtube-kayga kanaalkayga waa inaa like ii saartiin, comment waa inaa ii saartiin, sharekana igu dartiin, oo comment qoraal fiican insha allahu tacaala iga bixiseen. walaalkiina ahay insha allahu tacaala qof walbo dadkiisa oo wax ku yahay. marka aniga wixii oo karaamkayga ah waa idinla soo wadaagi doonaa haddii ilaa yiraahdo. muhiim waaye inaad tagtid
inta inan 10 ilaa iyo 15 daqiiqo ay ka dhimanta waa inaad meesha tagtaa waxaagana habeenkii waa inaad diyaarsataa ducadii haddii aan kuu sheegayana waa inaad akhrisataa marka insha allahu tacaala waa kusoo guuleysanaysaa haa haddii oo waxaan ilaaway mid kale haddii adiga baawarka kusoo guuleysatay oo imtixaanka aa lahayd qoraalka tiyoriga aa lahayd oo kusoo dhacdid isla marka waa inaad suubsataa buukan garaysataa haddii kale waxaa laga yaabaa kii kale inuu kaa dhaco haddii oo tiyoriga soo qaaday oo baawarka aa leedahay oo kusoo dhacdayna waa inaad baawarka isla markii waa inaad gashaa oo suubsataa insha allahu tacaala hal tips aan idin siinayaa waxaa kaloo oo ku buuka garaysan kartaa saaxiibkaaga walaalkaaga familigaaga nambarkiisa 10kiisa nambar waa ku ilaalsan kartaa marka adiga oo waxa ay ku dhamaadaan asiga uu kaaga baxa adaa samaysan karo insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh